hal maalin iyo mesaan filaa 10 saacadood waan filaa bas u baahan tahay bas graphic designer soo macnaha bas kaliya waxa u baahan tahay si graphic designer u noqotid kaliya waxa u baahan tahay waxa waay 32 saacadood bas u baahan tahay waa waqtigaad inaad gelisid maalintii waxay koontaa meeqa maalintii 24 saacadood waa rajeena soo 24 ku dar maxaa waay 48 waara soo loo maalin dambe la gaaray hal maalin iyo mesaan filaa 10 saacadood waan filaa bas u baahan tahay bas graphic designer u noqotid soo waxaad marka dufcadii labaad waaye oo kooraskaani bilaaw oo ana intaan barnaamijka hadda bilaabnay oo offline ka ah ardaydii hore waxaan rajaynaynaa waxa hadda idinku xigaan fasalka hadda wixii soo galayaan wixii ka dambeeya casirka shaqo badan ay sameeyeen wax badan ay soo saareen oo juhud badan ay gelinay bandhig fiican ay sameeyeen oo teamka way soo gudbiyeen internetka waxaas waa ku aragteen muddo bil gudihiisa ay horumarkaas ay ku sameeyeen intaas ay idinka rajaynaynaa muddo bil gudihiisa in horumar aad sameyseen dadaalkana laba dhinac ka imaada mid waa macalinka dadaal uu bixinayo hab gudbintiisa iyo qorshaha ama balaanka markaas u degsan iyo habka uu adeegsan doono mid labaadna waxa waay ardayga wax uu bixinayo soo mid ka mid ah labadaas haduu gaabis uu ka imaado fashil dhacayo ardaygana haduu juhdi bixin waayo si walba macalinka uu dadaalo way adagtaa markaas in horumar la sameeyo sidoo kale intana haddii macalinkii uu ka gaabiyo qorshihii markaas uu degsaday iyadana way adkaanay ardayga si walba juhdi uu bixiyo in wixii markaas uu fahmo soo marka labada xabo saas ay isugu tiirsan yihiin ama saas markaas isla mid yihiin taas waa marka tan hadda inaan ku balanay ay tahay inta labadan bilood in waqtigeena ay ilaalisaan soo maanta aan ugu dambeeyo waqti aan soo daahno in sugeen ardayda isku yimaadaan saafila 8 saac markii la gaaro hal qof bas jooga la dhahay waa yaabsanay marka soo marka idinkan waqtiina ilaalin doontiin rajaynaa oo maalmaha soo socota si horumar fiican ah u sameeyno marka waxay maanta waxaan rabnay barnaamijyadan in la idinku soo qorshiyo aan ku wada socon leeyahay in isla fahanno oo isla dejino ileen wax qorshe la'aan ah hadii meesha ay taalo way adkaanay markaas in horumar aan sameeyno ama guul aan ka gaarno waliba slide-keeda si aad dadka aysan caqabad ugu noqon bana af Soomaaliya jecel waxna ku qor waxaan diidaa English da wax ku qor luqada dadka u socdaan ay meesha yaalaan Soomaali ay yihiin English meesha ugu qoreen meesha u baahnaa marka ma gaaray hadda buugta asamay naftarkooda Soomaaliya ku qornaa soo waxaan dhigna marka maalintood waxa bilaabaynaa waxa bilaabmayo naqshadeynta iyo wixii marka intaanan sii gelin waxa ujeedada weyn aan leenahay halkaan waxa waaye qofkan waa asiga wax sameeyo أنا ما أدري أنت سوي استوى إن أكون ضل مرة إن أكون ده هبلو سان لو سما ما معنا ما أنت طولة برينا إسلا طول كي حنكو سينا سينا وأديك سن لهاد أما بروجكتي كسمينا نوع معنا ما له والبروجكتي أسوساري نوع هذا ولا ليال أفوقي وعدا وكفايدة